magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay warshadaha yaryar ee soo saara qalabka kala duwan ee xilliyadii hore dibadda laga soo dhoofin jiray. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan uu ku eegaya warshadaha sameeya qalabka balaastikada ah waxa uu ka soo diray Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa ku taala warshad qalabka balaastikada ka samaysa maacuunta noocyadeeda kala duwan sida baaldiyada, garaafooyinka, tarmuusyada iyo noocyada kala duwan ee kuraasta, waxaana ay shaqo abuur u noqotay dhalinyaro badan oo markoodii hore baagamowdo ahaa, waxaana sidoo kale warshadani fursad shaqo u noqotay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo halkaasi ka soo saarta nolol maalmeedka qoysaskooda. maamulka ku-xigeenka warshada qalabka balaastikada ka samaysa maacuunta Abuukar Xuseen ayaa VOA uga waramay ujeedada warshada loo aasaasay iyo waxyaabaha ay qabato. inay abuurto shaqo abuur oo abuurto dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo u baahan shaqooyin markaasi ay ka shaqeystaan si ay markaasi ugu faa'iidaan xag noloshooda. warshadan balaastikada ka samaysa maacuunta ayaa si joogto ah u shaqeysa habeen iyo maalinba, waxaana ay ka kooban tahay 9 mishiin oo muhiim u ah howlaha wax soo saarka warshada. It's working for day and night 24 hours. warshada balaastikada ayaa marka ay maacuunta iyo agabka kale ee ay soo saarto diyaariso waxa lagu xiraa kartoomo iyo jawaano si loogu daabulo gobolada dalka looguna iib geeyo meelaha laga soo dalbado. aniga waxaan qaybsanahay macnaha qaybta packaging-ka oo xirxiritaanka sida Soomaalida u taqaan. qaybta xirxiritaanka ayaan joogaa. alaabta aan xirxirno markaas baabuur lagu qaado shirkadaha oo macnaha alaabta naga iibsado loo geeyo gobolooyinka Soomaali loo kala qaadaa. qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo markoodii hore la daala dhacay duruufo adag oo dhinaca nolosha oo ay warshadani shaqo siisay ayaa waxa u fududaatay inay helaan nolol maalmeedka qoysaskooda. tarmuushada waa ka shaqeynaa, sidii biinka aan ka shaqeynaa, biin waa ka shaqeynaa, bikeeriyaasha waa ka shaqeynaa, wax walba waa ka shaqeynaa. markaas maalintii waxaan ka haysanaa meeshaan nolol maalmeedkayna aan ka haysanaa. warshadan balaastikada ayaa dhinaca kale si weyn uga faa'iideysata maacuunta jajabtay ee caagadaha ka samaysan ee waxtarkeedu dhamaaday dadkuna iska tuuraan, taasoo intay soo ururiyaan ay misana dib u habeyn ku sameeyaan si ay mar kale suuqyada ugu iibgeeyaan iyagoo ku iibinaya qiimo ka yar kii hore. haweenka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa dhinacooda sheegay inay ku aflaxeen. الحمد لله رب العالمين أدق مالنت عن جرد أنك هالهلنا. حسن كافي قويستي VOA مقدشو.